madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa yiri hadal aad looga hadalhayo baraha bulshada wadamada muslimiinta gaar ahaan wadamada Carbeed. Joe Biden oo hadlayay ayaa wuxuu yiri waxaan xaqiiqsaday oo ogaaday in aanan diinta Islaamka aad wax badan uga aqoon oo tafaasiisheeda aanan aqoon, sida inaanan aqoon oo kale imaamka qarsoon oo uu la jeeday Mahdiga. Arrintaasna waxaan u xil saaray nin professor ah inuu yacni soo ogaado oo xog badan uu iga keeno. I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor. Mahdigu waa shakhsiyad ama nin soo bixi doona aakhiru zamaanka kaasoo u talin doona muslimiinta dunida korkeeda iyo dhulka korkiisana ka suulin doona dulmiga iyo fasaadka. sidoo kale waxa uu la dagaalami doonaa kana guuleysan doonaa cadawga muslimiinta. Mahdiga waa la isku waafaqsan yahay, laakiin ahlus sunnada iyo shiicadu waxa farqi u dhaxeeya oo ay xoogaa isku khilaafsan yihiin magaciisa. ahlus sunnada oo kale waxay aaminsan tahay in magaciisu uu yahay Maxamed bin Cabdillaahi oo Nabi Muhammad ay isku magac yihiin, qof caadiyana uu yahay, halka shiicada gaar ahaan kuwa la yiraahdo Itnaashariyada ay aaminsan yihiin magaciisa in la yiraahdo Maxamed bin Xasan, una ka soo jeedo ahli beydkii nabiga sallallahu alayhi wasallam, una dhashay hijriyadu markay ahayd 255. waxayna sheegaan sidoo kale in Ilaahay uu ku galaday cimri dheer kaasoo u saamaxaya in uusan soo muuqan ilaa iyo aakhiru zamaanka. su'aal yar oo kooban, adigu maxaad ka fahantay hadalkan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden?